kuna wacan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo si rasmi ah u wareejiyay xafiiska Villa Soomaaliya hadaba muxuu Farmaajo ku wareejiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Ra'iisul Wasaare Roblana waxa uu soo saaray amar ku socdo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo qaybta dambe warkeena waad ku daawad doontaan Somaliland oo xukun adag ku riday wariyaal uu ku jiro Cabdi Maalig Codon qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwa ugu door corona warka janalka dalka TV Media fadlan daawade hadda nagu cusubtaa nagu soo biro kamid noqo saaxiibada hela wararkaanu ku baayna janalkan aragtidiina halka hoos nagu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiinana waa inuu muhiim haatan ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah xilka ugu wareejiyay madaxweynaha mar labaad la soo doortay ee Xasan Sheekh waxa uu ka warbixiyay feelasha iyo dukumeentiyada uu wareejiyay kadib 5 sano oo uu soo xukumayay dowladda federaalka ee Soomaaliya Farmaajo oo ugu horeen soo hadal qaaday ciidankii loo qaaday dalka Eritrea ayaa sheegay inuu madaxweynaha cusub ku wareejiyay ilaa 5,000 oo askari oo loo tababaray qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in ciidankaasi uu u soo dhamaaday tababarkooda balse ay dib u dhigeen in la keeno maadaama ay ku soo aadeen xilli doorasho 5,000 oo askari ayaa tababar u geynay dalka Eritrea waxa ay dhameysteen tababarkooda sanadkii hore bartamihiisa waxaana dib ugu dhignay xaaladda aan ku jirnay inaysan saameyn doorashada dalka ayuu yiri mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu wareejiyay badqabka kheyraadka dalka oo aan ku dhicin wax isbedel ah isagoo sidoo kalena soo hadal qaaday kiiskii badda ee soo dhamaaday waxa kale oo uu xusay in hantida dadka Soomaaliyeed ay sideedii tahay isla markaasna uusan jirin wax dhul ah oo uu milki ahaan u bixiyay hawadii Soomaaliya ee la soo celiyay isla markaasna hadda laga maamulo magaalada Muqdisho ayaa kamid ahaa waxyaabaha kale oo uu wareejiyay Farmaajo sidoo kale sharciga doorashooyinka ayuu u dhiibay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si dalkan loo gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah dhinaca kale wuxuu sheegay inuu jiro codsi ay u direen qaramada midoobay oo ku aadan xubinnimada dalkeena isla markaasna Soomaaliya ee golaha fariisan doonto sanadka 2025 ilaa 2026 arimaha kale uu soo hadal qaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa kamid ahaa inuu wareejiyay barnaamijka deen cafinta oo uu tilmaamay inay ka soo gudbiyeen ilaa 4 marxaladood isla markaasna ay dhiman tahay hal marxalad oo kaliya ugu dambeyntii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu tilmaamay in arinta Somaliland ay wali halkeeda tahay balse loo baahan yahay in la siyaanba qaado wada hadalada si looga miro dhaliyo midnimada ummadda Soomaaliyeed geesta kalena Ra'iisul Wasaare Roble waxa uu soo saaray amar ku socdo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa soo saaray amar culus oo si toos ah ugu socdo wasaaradda arrimaha dibadda kaas oo la xiriira shaqaalihii laga saaray wasaaradda Roble ayaa wasiir Cabdi Saciid Muuse Cali ku wargeliyay in laga bilaabo 1 Janaayo 2022 shaqaalaha dowladda ee la bedelay ama shaqada laga qaaday aysan waafaqsaneen go'aankii hore uga soo baxay golaha wasiirada sida lagu sheegay qoraalkan soo baxay Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale faray in dhammaan shaqaalahaasi dib loogu fasaxo howlahooda shaqo dibna loogu celiyo goobihii iyo xafiisyadii ay ka shaqeynayeen mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa faray hay'adaha kale ee dowladda ee warqadan ogeysiinta la socodsiiyay inay qabsadaan howlaha kaga aadan fulinta amarkan sidaas daraadeed waxaa la idinka rajeynayaa inaad sidaan ula socotaan fulisaan awaamirta sarsare ku xusan ayaa lagu yiri gabagabadii amarkan ka soo baxay ee Roble go'aankan ka soo baxay Ra'iisul Wasaaraha ayaa ku soo aadayay xilli xasaasi ah maadaama uu xafiiska maanta si rasmi ah u la wareegay madaxweynaha cusub ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba wuxuu amarkan saameyn doonaa shaqaalaha kala duwan oo ay wasaaraddu qaadatay wixii ka dambeeyay 1 Janaayo ee 2022 maadaama dib loo soo celinayo shaqaalihii hore u joogay wasaaradda ee la bedelay iyo kuwa toos looga saaray shaqada sidoo kale tani ayaa imaanaysa xilli ay soo baxayeen warar la xiriira in xubno badan xilka qaadis lagu sameeyo oo hoos tagayeen wasaaradda arrimaha dibadda hawa ugu badnaadaan xubnaha ka shaqeynaya safaaradaha kala duwan ee dalalka caalamka kuwa cusubna lagu bedelay Ra'iisul Wasaare Roble talaabadan uu qaaday ayaa la filayaa inay dhaqan gasho waxaana sidoo kale talaabadiisa imaanaysa xilli uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu booqasho 4 maalmood qaadatay uu ku tagay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta
waa hagaagay daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa Somaliland xukun adag ayay ku riday wariyaal uu ku jiro Cabdimaalig Coldoon. Maxkamadda racfaanka ee magaalada Hargeysa ayaa xukun adag ku riday wariyaha Cabdimaalig Muuse Coldoon oo bilay la soo dhaafay u xirnaa maamulka Somaliland kadib eedeemo culus oo loo jeediyo wariyaha la xukumay. maxkamadda racfaanka ayaa 23 May 2022 ku xukuntay 2 sano oo xabsi ah iyo 3 milyan oo lacagta Somaliland ah wariyahaasi. xukunkan ayaana ku soo aadaya iyadoo hore maxkamadda gobolka Maroodijeex ay u soo saartay go'aanka ay ku shaacisay in wax dambi ah lagu waayay wariyaha Coldoon iyadoo amartana in laga sii daayo xabsiga. wuxuuna go'aankaasi soo baxay 3 Febraayo ee sanadkan. kadib waxaa go'aankaas ka soo baxay maxkamadda racfaanka qaatay xeer ilaalinta waxaana kiiska sidaas loogu sii gudbiyay maxkamadda racfaanka oo xukun adag ku riday Coldoon. ehelada wariyaha iyo qaar ka mid ah dadweynaha Somaliland ayaana si weyn u dhaleeceeyay go'aankan ka soo baxay maxkamadda ee lagu riday Cabdimaalig Coldoon oo xabsiga loo taxaabay taariikhdu markay ahayd 23 bishii 8 sanadkii 2021 ayaa loo soo jeediyay eedeemo culus sida dacayad qarandumisnimo ah, faafinta warar been abuur ah iyo aflagaadeynta siyaasiyiinta iyo golaha sharci dejinta ee Somaliland. sidoo kale eedeemaha kale ee loo soo jeediyay waxaa ka mid ahaa inuu warbixino lidi ku ah ka qoray dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo doodaas oo meel sare gaartay. wariyaha Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ku caanbaxay arrimaha samafalka iyo u gargaaridda dadka tabaaleysan ayaa marar badan siyaabooyin kala duwan loogu xiray Hargeysa. dhanka kale maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa waxa ay min 1 sano iyo 4 bilood ku xukuntay wariyaasha kala Maxamed Ilig iyo Cabdijibaar Maxamed halka xuriyadiisana dib loogu celiyay Cabdiraxmaan Khaliif. wariyaashan ayaa dhowaan lagu xiray magaalada Hargeysa kadib markii ay soo tabiyeen shaqaaqo ka dhacday xabsiga dhexe ee magaaladaasi. hase yeeshee arinta shaqaaqada xabsigaas marka laga tago kiisas kale hor leh ayaa lagu oogay wariyaashaasi taa oo ugu dambeyn keentay in maxkamaddu ay ku xukunto 1 sano iyo 2 bilood oo xariga. Somaliland ayaa inta badan waxaa ka jirta caburinta xooggan ee lagu hayo bahda saxaafadda iyo dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha. waxaana tallaabooyinkan eedeeda dusha laga saarayaa xukuumadda uu hogaamiye Muuse Bixi oo si ka baxsan xuriyatul qowlka oo la dhaqanta bahda warfaafinta. dhowr mar ayay siyaabooyin kala duwani u xireen wariyaal ka howlgalaya deegaanada Somaliland. inta badan nidaam aan sharci ahayn iyo eedeemo aan jirin ayaa dusha laga saaraa warbaahinta iyo wariyaasha isla markaasna keenta inay kula dhaqaaqaan xarig aan loo meeldayin. waxaana adag in inta badan laga dhiidhiyo xariga ee Somaliland kula kacdo bahda warbaahinta inkastoo ay muteystaan xubnahaasi inta badani ee qayb ka mid ah ku qaataan xabsiyada ku yaala deegaanada Somaliland. waxaa taasi dheer in muddo dheer ay iska xirnaadaan iyagoo aysan maxkamad xukumin taa oo lagu tilmaamo mid sharciga baalmarsan. waxaana jirin wax hadal oo ka soo baxay xukuumadda Muuse Bixi ee ku aadan inay ka jawaabto caburinta baan ay ku hayso bahda warbaahinta iyo dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha. guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii waad kala socoteen janalka dalka TV Media fadlan daawade haddaad nagu cusubtahay nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada hela wararkaanu ku baahina janalkan aragtidiina halka hoos nagu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiinana waa inoo muhiim waana ku maasantiin daawashada iyo socodka warka janalka dalka TV Media.